السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وهذا السلام هيا وحنا ذكر سلام سلامة إسلامك سود وهذا رين بدي نقول ملك استود الدنيا كجس سجته سود وهذا شير جري عجلة جارسية بيت والبا يمل بكتور يدكم ماس كعمهن إلهي إذن مجويه دمانتين ونقول يسني وحنا كقول يسني عدو قش الشيء الدوريو افتين كيري نوب حيو إنه نقدميه waanu guulaysanay waxaan ka guulaysanay dalayda Soomaaliyeed ee u shaqeynaysa shisheeyaha ee go'aankooda uu noqday farmaajo dalka waxba u qabtay ee farmaajo la dagaalamayna waanu guulaysanay waxaan ka guulaysanay kuwii dalkeena Soomaaliyeed dagaalka sokeeye galiyay ee qabyaaladda iyo qurunka isku raacay soo dhawaada dhamaantiin waa waaska duqbulowha kablo faarax walaalkiis macowkii ka yaraa Bashiir Balla Matanaayan حسن قول سعيد كيس قرشوا درس كيس كنا وراونا قرسيكو ساها جاب كجا لقتي معنا الشورية بناوين شنطة بغا بغوري رينا بدي نقول وحانيدو كو إيروان قولي سني إهاني الجبنا هادا جاي سنينا بنت يبربغاندا دا السوشيال ميديا لدح وريقيان وارغان تبرهينين وارغ شيء وشقيني وارغ كفانيو إن دل كان ناقو ودبقو نغضو ماشي وكي من صدو سنة هادا كور Soomaali Maxamed dalka Soomaaliyeed meel fog buu ka yimid meel wanaagsan buu marayaa waxaad ogtihiin Abriil 12keedii in dawladda Soomaaliyeed ee uu hogaamiyo mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu soo bandhigay ciidan Soomaaliyeed oo tayo leh qurux badan moraalkoodana uu sareeyo 6 sano ee dalka uu xukumayay hadda hal maalin ciidanka Soomaaliyeed mishaar la'aan kuma dhicin shaqaalaha dawladda u shaqeeyo ee ku sugan caasimadda dalka Soomaaliyeed hal maalin مشار لانكم ما يصدقين آديات رنا بدي نقول سود وهذا شير جري عجلة جارسية بيت والبا يميل بكتورة إيدكم محسن وعنو سوق قلينا كهذلو لبا قضب حساسة وحد معاه سوق كدرو وبرلمان الصوماليات قصيو إيه وحن كهذل لنا دليدن شيء وشقيو أو يسكون على آديات قضب كوري كور مرة وحاوي إن قربتها مركي فيدكي أفريقيا هاي إن برلمان الصوماليات لو دري تكست مسج تكس مسكاس وكقرن ولا ليه هاي وحاحل وريجين سمين دور مدن مرسل وعام مقرساي قطبت جديد دوره وذاك دبنا عد إذا جدين قاب ودل كنجا بربر كوجلين جاري هو ساسس معناها وحنوع عاسى حل بنا ذا اللغر لكن أرنتو سيدا معها هذا الكي قادو لقيشتو حل بنا ذا الصوماليين وإن معناها جندها مركب كوبادا سكاخر السنة وحيد مع زيه إن مكي فشل مي وجوه الرئي الرب لباهن أو كحجة أذيركيس دبنعت وحيد مع سيه إنه يدوريان لحية طبنكي حلبان إما إنه يتلد ديده بوق بدن دليل اللي وصل دور تيدلك كية إن أي مجرى يساعد كل داريان حرونت بارلمان كنا كل داريان بالدنيا وحنك ورهلني اللوجي هاي وعاوة سعودي إلا برينتر جريني أيديا ذا نمكي عيل وغلو وصل دورت هذا القاعد ولا جيش اللي بنادى الصوماليات بمسجد كوكو سعودة وحيدونيا بريتو صدق هذا قضبي هذا يدين صدرين موجية بري وحيدونيا لحية طبنكا عيل واغلو صدورتي أحمد مدوبة دولة دكية أي أصوح الشيء إن بريته اللي بنادى هرت هذا اللي داريه دوريا نكان بوح أي هذان جران ماي سوء بهدلة قابو بهدلن الصومال لماذا مجرد ساي ولا كذا كسر جدو isagoo magaraysaay siyaasiyiintii iyo madashi qaran aan la tashanin oo magaraysaa wixii khilaafka dhaliyay wali uu taagan yahay ID kaariyo printer gareeyay laakiin shaqeyn maayaan sidii maalin dhaweeyta doorashada markay dhacaysay aysan u shaqeynin ayay tan u shaqeyn doonin hadalkaas dhageyst xildhibaanada Soomaaliyeed arintaas aan idin ka digaynaa qorshahaas ay damacsan yihiin waxay rabaan nimankiyo ideal maalin la weeto waad ogeedeen imada Soomaaliyeed laba socdaan baro maleynay wax yar ka daba geeyay intaan xildhibaanada u soo noqon maalin la weeto markay doorashada gidoonka baarlamaanka dhacaysay waa tiyaad ogeedeen oo buuqa badan u dhashay buuqa ugu badnaana wuxuu ka dhashay 16 ceelwa iyo 16 garbaharey dood badan oo socotay iska qabsi far badan oo socday ugu dambeyn waxa la isla gartay oo la isla qiray in khilaaf ka taagan yahay 16 kursi ee ceelwa iyo 16 kursi ee garbaharey waxa ugu dambeentooda dhabanacad iyo rooblabaahane beesha caalamku ay ku qancisay in aanan xildhibaanadan labada dhinacba aysan haysanin aydiyo dhageysta dalka
ideo aysan haysanin dadka reer gadan ay heshiis ku ahayn inta arinta ideo iyo xildhibaan ay ka noqonayaan kaarka xildhibaan ka qaadanayaan heshiisna laga gaarayo oo reer gado ay heshiis ka gaarayaan arintan dib ha loo dhigaa la yiri sidaas lagu heshiiyay roobliya adeerkii sidaas ay ku qanceen sidii baa doorashada lagu garay hadda waxay doonayaan inay excuse ka dhigtaan oo cudurdaar ka dhigtaan beesha caalamka ay nagu tiri maalintii horeeto kaarar ma aysan haysanin raggan hadda kaararkii baa loo sameeyay sidaasaan ku dhaarinaynaa inay yiraahdaan dhabana cad bay wali arrintaasi kaga dhigan tahay oo Axmed Madoobe uu buush gareenay laakiin xaqiiqdu waxay tahay waxa weeye dhabana cadow iyo ninkii la yiraahdo roob la baahanow gado xildhibaanadeeda heshiis laguma ah reer gado waa inay ku heshiiyaan reer gado waa inay isku afgartaan reer gado waa inay keensadaan dadkii ayaga matalaya xaqiiqda dhabta xildhibaanada Soomaaliyeed baan u soo noqonayaa berrito waxay damacsan yihiin inay buuq dhaliyaan inay kitaabo meesha soo dhigaan kana been sheegaan bay doonayaan oo hortiina xildhibaano ku dhaariyaan arrintaas waa inaad ka digtoonaataan arrinta waa inaad ka hortagtaan arrinta waa in gudoomiyaha la doortay ee saxda ah mudane Sheekh Aadan Madoobe waa tuu maanta yiri xisbigii himla qaran xilkii aan ka hayo waa iska casrin waa soo dhaweynayna mudane ummadda Soomaaliyeed waa ka dhir sugaysaa ummadda Soomaaliyeed indhahay kugu haysaa mudane noqo mudane Soomaaliyeed oo Soomaali u dhaxeeyo mudane waad ogtahay siyaasadaada hadda ka hor qaabkii ay ahaan jirtay waad la socotaa maantana meesha ay taagan tahayna waad la socotaa mudane sharaftaada maanta dib ay u soo noqotay ha isku dayin sidii Cabdullaahi Yuusuf iyo Sheekh Shariif waagaad gudoomiyaha baarlamaanka ku ahayd inay sharaftaada dib u dhacay saaxadda siyaasadeedna dad shakhsiyaad gooniye ka saaraan oday Soomaaliyeed noqo reer gado waa dadkaagi gudoomiyaad u tahay dhaxtag soo xali ka qayb qaada xalka iyo isu keenida reer gado Garbaharre iyo Ceelwaaq isu keen Axmed Madoobe iyo Rooble waa kala dilayaan dadkaas mudanaadaan taa kula hadlaya xildhibaanada Soomaaliyeed arrinta ka digtoonaada waxay birinter gareeyeen aydiyadii waxay damacsan yihiin berita subaxii insha Allah haduu ilaahay marka timaadaan in la idin boobsiiyo halka lagu dhaariyo xaqiiqda dhabta ahna waa taawi waxaan kaloon halkan hadal looga dirayaa idinkana nimanka reer Garbaharre lagu soo doortay aydiyada waa la idin sameeyay idinkana berito waa inaad meesha tagtaan idinkuna bartaas hadii la dhaariyo idinkana waa la idin dhaarinaya xaqiiqda dhabta hadii kuwa ceel qolay lagu soo doortay ee Kenyaanku ay soo doorteen lagu dhaariyo xarunta baarlamaanka idinkana cidna idinkama xigto waad ku dhaaranaysaan waana la idinku dhaaranaya laakiin nabadda waa in laga raaca ninka la yiraahdo dhamanaad Soomaali waa ku dhaxeeyay sharaf kuma leh karaama kuma leh lacag yar buu ka doontay sharaftii iyo qiimihii ummadda Soomaaliyeed lacag yar buu ka doontay xaqiiqda dhabta ummadda Soomaaliyeed waa inay arrintaasi ku baraarugtaa waa inay la socotaa nimankan dhabanaad iyo Rooble warqad bay maanta soo saareen guddigii beenbeenta ahaa ee Muuse Geelle uu magaraysaay jeebka ku watay ee baaswarkoodana uu Al-Cadaala uu ku watay magaraysaay jeebka ku watay warqad bay soo saareen warqadda waxa looga daleeyahay oo dhan baan la soconaa warqadda waxa ku qoran 2 kursi oo magaalada Beledweyne degmo doorashadooda ay ahayd inay maanta yiraahdeen waan wareejinay qorshaha iyo arrinta siyaasadeed laga leeyahay waa arrinta ceel qolay iyo meesha la yiraahdo Ceelwaaq in lagu xalaaleeyo laakiin dhici mayso reer gada majority-goodii waxay aaminsan yihiin inay matalaan nimanka Garbaharre lagu doorto laakiin xal bay wali doonayaan nabad bay doonayaan wanaag bay doonayaan in ummadda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed degan gado magaraysaay si nabad ay ku wada noolaadaan bay doonayaan xaqiiqda dhabta warqadda ay soo saareen waxay yiraahdeen 2 kursi baan ka wareejinay magaalada la yiraahdo Beledweyne waxaan u wareejinay magaalada Jowhar taas oo ay rabaan marka dambe inay dhahaan heshiiskii 17 September waxbaan ka bedelo Beledweyne way ogolaatay oo Jowhar baa lagu qabtay 2 kursi oo yiraahdaan Garbaharre waan ka wareejinay Ceelwaaq baa lagu magaraysaay loo wareejinay yiraahdaan laakiin shaqeyn ma saadiyaan arrintaas aad jirto reer nabad iyo nolol xildhibaanada Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed ee nabadda jecel arrinta waa in lagu foojignaada roob la baahane iyo adeerkiis wali ma aysan quusan laakiin waa la quusin wali ma aysan quusan laakiin waa la quusin suqumaati baa loo quusin insha Allah haduu ilaahay halka waxaan kaga tagayaa baarlamaanka qodobka labaad baa ka hadlaya nimankii musharaxiinta sheeganayay ee hasha beesha ahaa ee Kenyaanka iyo Imaaraadka iyo wadamada shisheeye u shaqeynay ee cadaawadda farmaajo ku heshiiyay caawa isku dhaceen ninkii Xasan Cali Kheyre ahaa oo nin wanaagsan ahaa oo nin Soomaaliyeed ah oo dawladdan maanta aan ku faanayno qayb lixaad la ka soo qaatay dhisideedii haday ciidamada noqoto haday financialka noqoto qayb weyn ka soo qaatay oo la xaqiri karin oo waa dhaxdaas baashu ka yara hoos baxday oo nimanka ku biiray
ما أنت قرب كي جليين waxay ka dhigeen qabiil waxay ka dhigeen nin loo mooyaan ayay ka dhigeen geeskay geliyeen waa la cuqdadeeyay waxa weeye si aan wanaagsanayn oo qurux badnayn ayay ula dhaqbeen xasan cali khayre markii horeete ee magaraysaa dagaalka farmaajana waxay ka dhaadhiciyeen waan tashan doonaa taladii markii la isugu yimid la fuintii waxay tiraahdo ugu deeyna adeer oo magaraysaa jiqilkay geliyeen xasan cali khayre annaga u sheegayna mooryaanta ninka kaliya nabadiyo nolol annagu waan ka baqayno oo isleenahay challenge buu idin geli karaa waa ninka la yiraahdo xasan cali khayre waxba haya sina beeshu ka dhashay beelandheeru ka dhashay Soomaali Ilaahay boqortooyadeedii uu ka dhigay oo murursada la yiraahdo oo magaraysaa de hanti iyo dhaqaale iyo siyaasiyiin Ilaahay aan u yareenin buu ka dhashay xasan cali khayre iyo geeska geliyeen way cuqdadeeyeen shalayna ninka campaign gareynaya saaxiibka Jacfar buu ahaa oo nin aad u qiimo badan yaa shalayto nimanka garab taagna maantana qabyaalad bay ka dhigeen aad nimankii sidaa bay u kala jabeen midda kale ee ugu muhiimsan ee nimanka dhaxdooda ka qaraxday waxa weeye Axmed Madoobe iyo Dani Watays wateenad ogeedeen Axmed Madoobe wuxuu madaxweyne ka yahay Jubbaland laakiin doorashada waxa cadaatay inuusan madaxweyne ahayn oo babad u Dani wata u yahay oo geestay nimankan magaraysaa reer Puntland ee Maxamuud Saleebaanka inay u yahay magaraysaa babad leader oo exmay geesteen inuu yahay bacadaad reer Jubbalandtii qabaylada kala duwan ahayd ee Axmed Madoobe u aaminsaneed inuu madaxweynahooda yahay sida Fartaag iyo Caananuug iyo ragii reer Jubbaland ee magaraysaa caaqilka u ahaa maskaxda u ahaa aqoon-yahanada waa siyaasiyiintu ah waxay dareemeen in Axmed Madoobe uusan ahayn mas'uul ka arrimiyo Jubbaland oo uu yahay magaraysaa governor ee nimanka reer Puntland geysteen meesha la yiraahdo Kismaayo sababtoo ah Axmed Madoobe iyo Dani markay xildhibaanadu dhacayeen ee boobka uu socday waxa lagu heshiiyay in aqalka sare oo magaraysaa markii horeba ay reer Jubbaland ay ku fadhiyeen gudoomiye ku-xigeenkiisa labaad nin Mawlid la dhaw ku fadhiyo in Mawlid maadaama laga shakiyay lagu bedelo Fartaag yaa lagu heshiiyay aqalkan magaraysaa aqalka hoose in la geeyo qof Puntland ka socda la geeyaa lagu tashan waxa dhacday doorashadii aqalka sare markay dhacday Dani iyo ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda isku xisbi noqday waligood isku xisbi ah damul jadiid yaa hoosta ka heshiyo xeer naga daayay ninka waa ogaadeen waa cagdheer aadiyad waa laga hoos guuray xataa laguma marti qaadin meesha la yiraahdo Muqdisho sababtoo ah Dani waxa marti qaaday damul jadiid Axmed Madoobe waa codsaday inuu yimaado Muqdisho sida uu lafta gareen u yimid sida uu qorqor u yimid sida uu magaraysaa Cabdicasiis lafta gareen u yimid inuu Axmed Madoobe u yimaado ayuu damacsanaa laakiin waxa dhacday in aan invitation loo sameeynin amnigiisana aan la kafaalo qaadin oo laga gaabsaday Axmed Madoobe adeerkay aad baa laga xumaa waxa weeye sida Dani u barta waa campaign gareeyay Axmed Madoobena doonay laakiin de securitykiisi iyo magaraysaa kafaalo qaadkii Muqdisho uu ku joog lahaa cid u fidisay waa waayay adeerkay laakiin wuxuu islahaa ninka aad saaxiibaha tihiin ee isla soo halganteen ee la yiraahdo Siciid Dani buucbuucay bil rawada bal jira Dani iga raal qaadiya wuxuu yiri kolleyda waxbuu ku hambeen doonaa Dani maalintii doorashada gudoomiyaha aqalka sare gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare telefoonka waa ka dansaday ninkii Fartaag ahaa waa soo taagay waa taad aragteen nin waxa soo baxay reer Daraawiisha reer Qaatuba reer ACC ah oo magaraysaa xaaladiisu magaraysaa bariga dhaxatay baa meesha ku soo baxay reer Puntland Dani waa tuu suuqa soo galiyay labada dhinacba macnaha wuxuu isku dayay inuu yiraahdo anigu ninka dhulbaante mas'uul ka baahay laakiin dhulbaanta xildhibaanadooda inay ku kacaan baadar ka yar baqay waa sheegtoo ninkii waa la kulmay si hoos u hadlay aadiyad laakiin Axmed Madoobe wuxuu ka dhaadhiciyay oo anaguna maqlay in magaraysaa uusan damacsaneen ninka dhulbaanta inuu soo baxo aadiyad Axmed Madoobe sidii buu ku dagay Axmed Madoobe wuxuu yiri ilaa wadaan tolna Siciid Dariyow waxaa sameeyay uu yiri aqalkii sare in dhaaf reer Jubbaland waa dhaaf reer Jubbaland waana saameyn ku yeeshaan aqalka baarlamaanka hoose ninka Caananuug oo beesha garjan u dhashay oo reer Jubbaland oo qayoonada reer Jubbaland kamida waa inaad magaraysaa la isugu yeeyaa dhaqaale iyo magaraysaa juhdi la geliyaa Caananuug wixii ku dhacay waan arkaynay damul jadiid baa ka campaign gareeysay damul jadiidna marka lagu sheego waa Xasan Sheekh Maxamuud iyo Dani wey ragii ka campaign gareeyay waa ragii Dani ugu xigay oo ninkii gudoomiyaha ka jira gobolka muxuu ahaa ii sheeg gobolka Mudug sayar iyo ragii ka campaign gareeyay waan ogeyn Caananuug ayadoo og yihiin oo loo sheegay Axmed Madoobena uu soo wacay oo telefoonka ka dansadeen yaa laga campaign gareeyay Caananuug gabadha waxa soo baxday reer Puntland oo walaashay Sacdiyo وراد أنا قلت سقول لنا شخصيا وضد عاد معرفة أنا هاي يا ماشي كوسو بحذي ما شاء الله جاب كودي مركي الأركان نبضي نقول قام بقادتي أيضا نمبر 1 أو كوسو بحكرتي يقدم يكحيك دينا عن نبضي نقول إسعازي آديا حقيقة ضبط الله إسكو ما تدرين أدر معنا ماشان حلبة للراسية
نول بطلاد إنه وحكوية شو دوري معمول قبلات كسرة إنه طلاد وحكوية لتي دوريس لكن حقيقة الضبطة جبل وح طلع كل هذا فدرال كذا اللي جبل مركل الولاية هي ضد أحمد مدوبي وحجا وحي آمسين إنه ماشي وقاعدين كريم ليه ما له وقاعدين ماشي صومالي ودم بجبل لان جبل لان حق بيقوله هيد سيدا ما ملاذ كلا هيرشبيلية كوفر قلبي يبلن وحوقاتين إن أنا نقول رجبلن ويل جرجنا ويل جرجعل أمويل مريحان أمويل وقاعدين إنه حلقاته واجبه لكن وحبرتها إن دقيق وطلع حمد أحمد مدوبي إيه مقرر ساي درجي وأمينه قياني ومقرر ساي سحنو بهدل أحمدو دياك هاد دفاعي فدرال كهذا فرماجة مركوسونه نكوه الرئية توتا كوسو حيران دور وارجع إن شاء الله هدو إلى الآخر نمكي هالكاس كلام مريان أنك قول بينو تاجنا هدانو نهرين نبدي نقول حقيقة ضبطه وحي هذا براه بولشة السوق ليين ومقرر ساي بربغاندين يعني لين فرماجة واهري إيه فرماجة وسكار ورفرماجة بورسمين ورجع وكواد بوسجاشني سيدات عد إذي صوبدك وناقل كسرة كجر إذي كو صدح الصوت جاي وشيخ شريف يحزن الشيخ محمود ينيك اللي يراد الدنيا الصوت جاي بعد يا فرداف ويسين فرماجو كلية وويل سومالينا سجاشني سيدات بو لا مركو ورش إذا كلفت محاذو ملاين ساعة والثالث باري واحد ترتمي وقف كلام فرماجو مركو ترتمي محاذو ملاين ساعة كلها شمبرها أو عذيرية إن شاء الله هدو إلى يراد آدي رينا بدي نقول بفرنا نمكي إسبهايستي إيش الشيء هو شقيني فرماجو ويلكا الصومالي لا ويلكا الصومالي كقبة إيش هذا كقبة عدو إيش يسرى كقبة إن شاء الله وقوليشن فرماجو وقوليشن هو يوين كالصوماليات عدو ذا الله صعوتادية ويلكا الصوماليات على ودي مقرس هاي حماتي ويشين يا يجي ما أنت سكدرت ما أنت يجي بابا يسكدك يا آديات ورواس كده بروها لايف كجوجين مينو وانوضينا آديات قولي سنة بعد لنا وان قولي سنة ومدى الصوماليات بقولي استمر كان نبدي نقول الكلام نبدي نقول قبيل والبا يا كجرا قبيل والبوس لكن أيقو قبيلات حن وهذا أي كلاشكيين يي معناه ما كل كل شيء وين سي بربوري الدوران وين سي كلاشكين دوران إن شاء الله حز على غير روي صاد كادر بعد آديات حز على غير رو بلن بيبا نوت هاي ساتكي وحبيا اللي جبين لانقا باتاي مرصات هاي وحبيا اللي قاعد أدعين هذيات آد ما يدين سلام يا دمانتين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته